fiidiyowgan qaar badan oo idinka idinka mid baraha bulshada waad ku aragteen Soomaha maalmihii la soo dhaafay hooyadan aadka u dhibaataysan dhulka ku galgalanaysa xijaabkii tuurtay qisadeedu maxay tahay hooyadan gabadh yar dhashay oo la yiraahdo Hidaaya oo jirta meelaha 8 sano dadka qaarna waxay leeyihiin waxay jirtaa 6 sano adoo ilmo 10 sano ka yar baa waxa ku dhacday dhibaato xadgudub ah qasr al-kabiir magaalada la yiraahdo bay ku nooshahay hooyadan iyo gabadheedeerba ay ku noolaayeen waa Marookaan dalkaasi Maghrib gabadha yartaa waa la waayay markii muddo la la'aa baa la helay meydkeedii oo bacal inta lagu duuduubay meel qashin qub ah lagu dhaxriday markii meydkii la helay la arkay de waxaan ilmo yar meydkiisa inuu yahay waxa lagu wareejay dhaqaatiirta meydadka baadha waxa la sheegay cunugta yartaa in lagu xadgudbay markii hore kadibna la dilay cunug yar markaa halkan sawirkiisa idiin soo saari doono 16 sano jiro la yiraahdo Maxamed baa loo soo qabtay dambiga sababtoo ah meeshan laga helay meydku sidaa ugu kor wareegay waa laga shakiyay markii la qabtay la wareystayna wax walba uu qirtay bishan hadda aynu ku guda jirnay 12aad afarteedii bay maxkamadeyntiisii lagu dhawaaqay markay maxkamadeyntiisu yani soo dhamaatay waxa lagu xukumay 15 sano hooyadan marka waa hooyadii cunugta yartaa dhashay waxay ka xun tahay gabadheedii yareed xadgudubka ku dhacay ee la dilay adduunyada la dhaafiyay ninkii dhibka u geystay in lagu xukumay 15 sano waxay la cadaalad gabadheedu may helin sidan waa cadaalad darro maalinka dil lagu xukumo icdaam ma lagu xukumo ugu yaraan yani xabsi daa'im ma lagu xukumo ما أملاين يدلكاس المغرب إعدام إنه كشقة ما قرني ده حالة ظروف خاصة مركي مادان إنه قفك لدلو ما قرني والله هو معقول لكن أنت بدن قفك مركي لو حكومة دل حبس دائن أمريكا كفرت أو نقضة دل كيسو ولي وإسكحنا هذا وإذا مركب حيكح حناقصنت هاي لو أوي ساير دلك وجوجل قالنا يسا عدالة ما نهلين عدالة قبل ده يديرته هيد ما يهلين